السلام عليكم أصحاب تقييمها بدن هبين وناكسن halkaad naga daawanaysaan waa Aran Media Group fadlan channelka hadda ku cusub tahay waxaan si xishmad leh kaaga codsanaynaa inaad channelka subscribe dhahdo like saarto caawa barnaamijka sidoo hore wuu ka duwan yahay waxaan rabnaa inaan ka hadalno maalmahan social media waxyaabaha ka socdo oo u dhaxeeyo hogaamiyaha ugu sareeyo ee kooxdii CAF kala dheeri ama xujo oo cirka isku sii shareeray maalmahan waan la socday waan daawanayay oo shamishi mareysay waxa dhan marka waxaan rabnaa maanta inaan ka hadalno xoogaa yar aan wax ka dhahno hal iyo labo maadaama innees aan ku haynay kooxdan sidaa wada ogsoon tihiin muddo dhisan tahay fanaaniin fara badan magac adduunka ku leh ayaa iskugu yimid in badan isla shaqay jireen kadib ku kala tageen waayo sidaan ogsoonahay kooxda waxaa ka tageen Monya waa taqaaniin waa nin culus oo aad iyo aad magac u leh maadaama kooxda oo muddo oo ku jiray oo ka tagay waxaa kaloo ka tagtay Faadumiina ka tagtay waa arkiiseen waxaa ka tagtay Lucky Xaaji Wacaysa ka tagtay Naciima ka tagtay adiga hal iyo labo maldi karo waa aad iyo aad u badan yihiin inta ka tageen xoogooda marka teamkan waxa ugu dambeeyeen oo ka tageen gabadha la yiraahdo Muno iyo xaajigeeda Bosbas waa ninka kooxda kala waday actor caan la wada yaqaano waayo su'aalaha badan ay isweydiiyaa waxay kamid tahay markii ugu dambeysay oo Bosbas oo arintan uu ka hadlay wuxuu sheegay ilaa in isla tagay Djibouti oo ku xanuunsaday oo xataa seetahay wali quuri waayo seetahay wali quuri wali dhii waayo marka maadaama kooxda oo qofka shaqaalaha oo kooxda ku jiro iyo hoggaankiisa maadaama qofka kooxda markuu galayo shuruudaha jiraan shuruudu ku galaa marka waxa isweydiin mudan haddii qof saaxiibka tusaale ahaan oo saaxiibka qofka haduu yahay oo ku dhaho aniga waxaan rabaa tusaalaan UK ina aado Iraq lagu dhahay tusaalaan meeshaas Iraq marka hadii qofkii without reason hadda iska raacdo oo ticketkaadi meeshaas yaxanayso waxa cunayso oo jaabkaada ka bixinayso xoogaa waa dareemi kartaa meeshaas culays baad badan ayaa iska jiro laakiin mar walba haddii qofka aad ka xishootataa oo meeshaas asiga oo u socdo hadii adiga dan aysan kuugu jirin aadayso asiga danta kaligiis ay tahay waxa waajib ah qofkaas inuu ticketkaadi pocket money-gaadi meeshaas yaxanayso wax walba oo ka bixiyo ma ahan miya haddii la isla shaqeysanayo wixii teamka ka yimaado soo baxo in dhaxda la isla dhigto waa u jeedin marka aniga ma aqaano qof inuu iska raacdo oo hawsha uu soo qabato wax walba soo sameeyso dadka qaar maskaxdooda warkaas ma ku soconayaan waxa ugu dambeeyay oo barnaamijkan soo hadlay Cabdi Muriid Dheere Ajax waa taqaaniin waa nin culus xaqiiqada Ajax markuu soo hadlay meesha wax yaalo malahan marka hal iyo labo waxaan rajeynayaa in isla dhageysano Ajax hadaladiisa iyo waxa oo yiri waa maqliseen wuxuu yiri qof oo waji gashtay oo Ilaahay uumay ninkaas malahan qofka oo waji gashtay malahan labada qof oo raacaysana ayaga ku ajarmayaan ina maqasheen ayaa rajeynayaa waayo Ajax waa taqaaniin waa legend
aniga asad xumay ay isku day hadana kilib oo bambaadna inuu iga duubto oo qayaana waa ku fahmay aniga waxaan tusiga dadkii oo carwada joogay dhan meel waa maqlaysiin ajakis wuxuu leeyahay wuxuu isku dayo yiri kilib oo been inuu iga duubto yiri waa ku fahmooday aniga kolay ajakis waa ogtahay waayar ma soo barinin waqti badan oo adduunkan soo joogay maskaxdiisa taam waaye ninkan gudoomiyaha ah waxa waa intuu barnaamijyadan ku jiray oo bilaabay hortiis oo ajo barnaamijyadan bilaabay markaan si dhageysan ajakis waan joogay markaas carwada leeyahay tusay fahmis waatana barshoonaadsa yaa aniga fahmi filimna soo kaarta soo soo iga duubto waan ka weenahay markaan soo la dhammaan fanan ahay kasi أنا فهمي حسوا أنا وفهمي معي وبس كذا عامشي حتى نمبر كيس ودلار يعني نمبر ومغليسين أجاكس وحولية حتى نمبر كيسة واسكد اللي دولي واي قفدن أو بعضي هذا إيماو أو ديارة صراعي كو يمد شقديسة فاميليسة ددكيسة كسو تاجي adiga ku soo lugo-ay ku yimid waxay la mid tahay qof balamisay meel duur ay ku balamisay meel heblaan joogaa dhacday adoo ugu dhunto kale la mid tahay marka waa arrin la yaab leh waaye marka waxaan rajeynayaa waxyaabahaas oo kale inaysan soo laabanin dadka ku dhaceen kuwa u dhimanne inay ka waantoobi doonaan si dhageysta سوسيني هو ده فيلم كم صاروا أم سيرام لما بين كان أم أي سوقنا من هذين لما كيف كمان دليل عليها مركا نمبر لو بال والسي وعي ما كجواب أيو مركي دنبنا سعي السوق نمو وحيري إلى الصهد لو داي aniga waa la socdaa jakis maanto imaanay Djibouti oo soo aaday markii la soo dhaweynay sida loogu dhool cadeynay loogu qoslay marka waxa ogaanaysaa bini aadanka markuu danka leeyahay waxa waaye wax walba ku qaadato meel fiican oo ku soo mara asigoo malab iska dhigaa si malab camal maaragta asigoo ku dhoodhoora hadoo danti uu leeyahay oo ka gaarana waxa waaye ninkaan ka sii jiray iyo ninkaan saan iyo marnaba ma laga yaabo inoo dhaho marka aja waxa waaye taariikh uu soo arkay marka waa maqlaysiin si dhageysta abu karaysa dhageysta lama been kan abu karaysa waa maqashalo bixi naya marka ajakis wuxuu kaloo sheegay gabadhan moono oo la dhaho wuxuu yiri gabadhan waa 20 qofood oo iskaga aadaa laakiin ninkan boss waa nin afgaaban aad iyo aad u degan wallahi maalin dhexdaas markaan fiirsanaa videogaas xaqiiqdii qofkii dhiig leh waxyaabahaas oo kale ma u dulqaadan karo marka waxaan leenahay kooxdaas inta meesha ku hertay xaqiiqdii inta meesha ku hertay saddex bes waa macalla Marisa Carbona Manfenus iyo Amar Al-Shobaro saddexdaas meesha legend ka waxa hadda meesha joogo inta kale waa dad hadda suuqa soo galay oo magaalada soo galay oo hadda magac iyo wax si raadinay iyo waxyaabahaas oo kale ay u badan badana laakiin waxaan rajeynayaa arintan saddexdaas legend meesha ku hereen inay ka hadlaan ka waantoobaan ninkaasna muddo ka qabtaan kooxda haddii qof kaligiis horta oo wax wadi karo adduunkan ma jiro haddii asi kaligiis way iska saari karaanba haddii dhibkan ay arkeen oo inta qofood oo barfaadka lagu haayo marka waa dareemi kartiin marka waxaa idin leeyahay asxaabta qiimaha badan videogan hadduu idin soo gaaro sii share gareeya asxaabtiina la wadaaga mar walbo intaas ayaan ku gabagabeynaynaa wixii soo kordhana waa isla soconaynaa sidaas iyo nabadgelyo